mahad Mustafa Gaarana waa wiil Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan gudaha xerada qaxootiga ee Dhagaxley. Mahad ayaa naafa ka ah dhanka aragga asagoo na haysanin daryeel bini'aadanimo. Mahad ayaa horay muruqiisa maali jiray oo isla markaas qutulyoonkiisa ka soo dhacsan jiray gaari gacan sida uu asaga inoo sheegay, balse haatan uusan shaqaysan karin maadaama aragga naafa uu ka yahay. Waxaa nolosha ku weheliya hooyadiisa iyo sidoo kale gabar asaga la dhalata oo ayadana xanuunsan. Mahad Mustafa Gaarana dhakhtarka waxay dhaheen indhaha halka guluubka dambe ka jiran yihiin xaalkayga kale waxa way walaashay oo ayadana indhaha ay hadna way ka jiran tahay hooyana waa waayeel barana ma hayo midda iiga sii daran gogoshii aan ku seexanay ayadana meesha hal sijaayad aan iskula seexana 4 qof marka saasaad ogaanaysaan xanuunka indhahan baa la iga soo helay in yar shucaac baa soo qabsaday shucaac mar cadaan buu noqonay mar casaan baa igu soo badanay si macnaha madaxa dhiig ku furo camalhan xanuunka waa mid aan Soomaaliya kala yimid Kenya uma helin Soomaaliya kaga yimid gaari gacan laan iska xamaali baan iska ahaan jiray dadka ana u xamaali jiray gaari gacan laan badanaa iska ahaa gaari gacan leh sida uu waa la soo qabtay in yar baa la soo qabtay marka sidaas xanuunku igu yimid. Aamina Cilmi Ducaale waa hooyada Mahad waxayna inoo sheegtay inaysan haysanin hooy sidoo kalena aysan quudanin. Waan bilaabayaa Aamina Cilmi Ducaale wiilka xanuunkiisa waxa weeyaan markii hore aabihii baa iga haystay laakiin inanka isagoo indhaha ay naaqusayeen buu yimid markii hore uu yimidna wuu yara naaqusna dhakhtar walba waa marshay dhakhtar walba wuxuu leeyahay ku fadhiga maxay indhaha ayaa xanuunku ka haystaa dhakhtar walba waan soo marshay ku hooyda hadda meeshan ku hooyda halka iigu liidata ilinta iga maraysa halka iigu liidata kaarkii aan ka tagay aan ku soo noqday aan ku sugi kari lahay waa halkan hadda fadhiyo weeyaan inantay noqotay xanuunkan inantaasaa lagu helay oo soo noqnoqonaya iyadana saasay ugu tay labada qof baan dad leeyahay labadii qof waxba gacanta ugu maayo gurina wuu daboolay hadda guri haysatay albaabka baad u xidhataa cunno dadka ku siiya waxaad xidhataa umadaaba ku siisa labadiba way ugu bukaan mid indhalaan isagii baa qabanaya kii indhala isagii baa qabanaya suumbul dhacay maxay anigu waan qaban kari waay. Walaalaha muslimiinta muxsiniinta qeyrka jecel ayayna ka codsadeen wax alla waxay u awoodaan inay ku soo kaalmeen reerkani. waxaan walaalahay ka codsanayaa kii waxaysa in wuxuu i taaran kara i taarto kii kalena ii duceeyo saasan ka codsanaya. walaalaha muslimiinta meesha joogan inay kaalmeeyaan oo dadka ay la gargaaraan waxa qarash iyo maal waxay hayaan ay caawiyaan baan ka codsanay. Xasan Kaafi wararka bini'aadanimada badda Aston TV xiriyaha qaxootiga Dadaab.